kala fadhiga 53aad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo shirgudoominaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinaya madaxweyne ku-xigeenkiisa Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta lagu ansixiyay qabyo qoraalka xeerka ilaalinta xuquuqda carruurta sidoo kalena waxa uu goluhu warbixin ka dhageystay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta ku ansixiyay qabyo qoraalka xeerka ilaalinta xuquuqda carruurta xeerkaasi oo lagu dabaqi doono ilaalinta xuquuqda carruurta waxa kale oo goluhu dood dheer ka yeeshay qabyo qoraalka xeerka maalgashiga qaranka sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa golaha warbixin ka siiyay waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah qaba isagoo xusay doorka wasaaradda ee dadkaasi waxaana golaha wasiiradu go'aamiyeen in mudnaan gaar ah la siiyo dadkaasi ugu dambeyn waxa uu goluhu dood iyo falanqeyn ka yeeshay xaaladda guud ee ganacsiga kala xadeynta ganacsiga tayada ganacsiga iyadoo la soo saaray guddiga dhaqaalaha ee golaha kuwaasi oo loo xilsaaray inay warbixin buuxda ka soo diyaariyaan xaaladda ganacsiga ee dalka Abubakar Farxaan Cabdi Abubakar Abka wararka TV